naadiga pen ee qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Somali Speaking Pen asaasidiisa waxaa loo guntaday oo la yagleelay sanadkii 1996 waana fikir ka yimid qoraaga Soomaaliyeed ee Dr. Maxamed Daahir Afrax. si wanaag waxaa London ila joogay markaa muxuu ahaa hal abuuro iyo qorayaal uu ka mid ahaa ugu magac dheeraa waliba markaa Abaan Hadraawi Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi marka Hadraawi baan u tagay oo aan u bandhigay oo arintaas jirto aan jeclahay inaan marka charterkan yani hadaa ku qanacdo inaad qofka ugu horeeyo saxiixay anigu waa saxiix waa kan qofka labaad inaad noqoto waxaa ku xigay oo aan isku hawlay inaan markii hore ku helo telefoon iyo magaranaysa email xataa ma jirin waqtigaas Nuruddin Faarax qoraaga weyn maartay waaba soo socday London maalimanaya nasiib wanaag Nuruddin uu la socday international bank uu la socday oo lagu cusubay shirkiisa yani waqtiyaal ka horeeyay waqtigaas Somali Pen waxaa dhalashadiisa si buuxda ay dunidu u aqoonsatay bishii Août ee sanadkii 1997 taas oo lagu aqoonsaday shirweynihii caalamiga ahaa ee 63aad ee dalada guud ee International Pen oo ay ku midaysan yihiin qorayaasha iyo hal abuurka dunidu kaas oo ka qabsoomay magaalada Edinburgh ee caasimadda dalka Scotland. waxaana halkaasi lagu diiwaan geliyay Somali Speaking Pen oo xubin buuxda ka noqotay bahweynta caalamiga ah ee Pen International isaga oo noqday xubinta 142aad waxaana xaruntiisii u horeysay lagu yagleelay magaalada London ee dalka Ingiriiska. 3 bishii Abriil ee sanadkii 1998 waxaa qabsoomay shirweynihii koobaad ee udubdhiga naadiga Somali Pen intii u dhaxaysay sanadadii 1998 ilaa iyo 2000 naadigu waxa uu dalka Ingiriiska ka hirgeliyay hawlo badan oo iskugu jiray bandhig suugaaneedyo dood cilmiyeedyo falanqaynta buugaag cusub daabacaadda buugta horumarinta afka hooyo iyo wixii la mid ah. fadhigii guddiga fulintu uu yeeshay 14 bishii Abriil ee sanadkii 2003 waxaa la go'aamiyay hindise in Jamhuuriyadda Djibouti loo soo raro xarunta naadiga ee Somali Pen si naadiga qurbaha looga keeno looguna soo dhaweeyo dadkii ehelka u ahaa. hindisahan oo soo dhaweysay dawladda Djibouti oo hormood ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. hawlgalladii Somali Pen ka taabageliyay Djibouti waxaa ka mid ah qabashadii shirweynihii labaad ee Somali Pen kaas oo qayb uu ka ahaa kulan dhaqameedkii lagu magacaabay kulanka bahda Soomaaliyeed iyadoo xilligaasi inta u badan ay iskugu yimaadeen aqoon-yahanada Soomaaliyeed isla mar ahaantaana uu madaxweyne Geelle si rasmi ah qodobka uga jaray xarunta cusub ee Somali Pen ee Djibouti. 22 bishii Febraayo ee sanadkii 2006 waxay Somali Pen qabanqaabisay toddobaadka afka hooyo iyadoo ay ahayd markii u horeysay ee laga xuso maalinta caalamiga ee afka hooyo Jamhuuriyadda Djibouti iyo Geeska Afrika. madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo munaasabadaasi hormood ka ahaa ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay afka hooyo. waxaan ognahay inay ummadina meeshay doonto ha joogto aanay hore u mari karin haddaynan adeegsanin afkeeda aynan ku hantiyin cilmiga technology-ga horumarka dhaqan dhaqaale haddaanay ku hantiyin ma gaadhayso halkii loo baahnaa ma gaadhayso. dawladda aan madaxa ka ahay waxa ay ku tashatay inay xagga hore mariso qiimaha uu leeyahay ay siiso afka hooyo dadka aqoon-yahanka dadka mas'uuliyiinta hooyooyinka gaar ahaan haddii loo guntani waayo haddii xil la iska saari waayo haddii la dareemi waayo waxtarka uu leeyahay nolosha iyo horumarka dalka uu u leeyahay afka hooyo kobcintiisa dhaqaaleyntiisa horumarintiisa adkeyntiisa ka faa'iideysigiisa ku manaafacaadkiisa haddii la isla heli waayo
meel aan tagi karnay ma jiro. waxqabadkii badnaa ee Somali Pen waxaa ka mid ahaa dardargelinta wargeys cilmiyeedka hal abuur oo isna xaruntiisii loo soo raray Djibouti lagana soo wareejiyay London oo ah halkii uu ku asaasay Dr. Maxamed Daahir Afrax. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo munaasabadaasi hormuud ka ahaa ayaa ka hadlay. ummadi waxay horumar gaadhaa marka ay ku daadato hore u mariso dhaqankeeda, taariikhdeeda, afkeeda hooyo, marka ay dhiirigeliso hal abuurka dadkeeda. sida qura ee dhaqanka darajada looga ilaalin karo, aqoontana hore loogu marin karo, waa in dadka lagu dhiirigeliyo inay wax qoraan, dabadeedna waa in loo fudeediyaa sidii loo daabici lahaa ee bulsho weynta loo gaarsiin lahaa wixii ay qoreen. waa wax lagu farxo marba marka ka dambaysa Djibouti inay ku sii durkayso inay noqoto madal soo jiidata maskaxda horumarka dhalisa ee ku kala baahsan gobolkeena iyo dunida dibadda, taasoo u sahlaysa Djibouti inay noqoto xarun ifaysa, iftiin aqooneed, iftiin dhaqan oo laga soo higsado mantiqadeena iyo ka shisheeyaba. laga bilaabo sanadkii 2007 ilaa iyo sanadkii 2010 Somali Pen waxa ay waday barnaamij bilo ah oo iskugu imani jireen bahda qalinka iyo hal abuurka kaas oo ay ku soo barbaareen qalinleyda soo koraysa ee reer Djibouti. sanadkii 2010 naadiga Pen waxa uu qabtay shirweynihii weynaa ee Kongrega Somali Pen oo iskugu yimaadeen aqoon-yahanada, qoraayada iyo hal abuurka Soomaaliyeed ee xubnaha ka ahaa naadiga Somali Speaking Pen kaas oo socday muddo 7 ah laguna soo bandhigay dood cilmiyeedyo. sanadkii 2012 naadiga Pen oo garab ka helay dawladda Djibouti oo hormood ka yahay madaxweyne Geelle waxaa la qabtay xuska sanad guurada 40aad ee ka soo wareegtay markii la qoray afkeena hooyo ee Soomaaliga. munaasabadaasi oo ka soo qayb qaateen madaxda dalalka iyo deegaanada afka Soomaaliga lagaga hadlo. kulankaasi 40 guurada afka Soomaaliga midhihii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa Akadeemiyad Goboleedka Afka Soomaaliga oo madaxweynaha Jamhuuriyaddu ku dhagax dhigay magaalada Muqdisho sanadkii 2015 xuskii maalinta caalamiga ee afka hooyo uu halkaasi kaga qayb qaatay. dadaalka Somali Pen kuma koobnayn intaas oo kaliya ee laamaha naadiga Somali Pen oo caalamka iyo geyga Soomaaliyeed ku leeyahay ayaa laan waliba hawlo badan ay dalkeeda ka waday. hadafka iyo hawlaha kulan weynahan waxaa ka mid ah in uu shirweynahaasi muftaax u noqdo dardargelinta waxqabadka naadiga iyo sare u qaadida magaciisa si loo soo celiyo sumcaddii sare ee uu lahaan jiray iyo kaalintii hormoodnimo ee uu kaga jiray daryeelka iyo horumarinta afka hooyo iyo hal abuurka suugaaneed siiba hal abuurka qalinka qodobadaasi iyo kuwa kaleba.